qisadan marka aad daawato waxaad iska ilaalin doontaa qofka dadka kuugu dhow, saaxiibka, walaalka iyo qof walba oo aad nolosha wadaagtaan. saaxiibkiisii nolosha ayuu u dilay gabar uu guursan rabay darteed. ha u fahmin laba nin oo naag isku haysatay sida gabar aan jeclaa ayuu ila jeclaaday. ma ahan sidaas. qisadani waxa ay leedahay weji kale oo aadan malaysanayn weliga. waxaadna ku qasbanaan doontaa inaad ka digtoonaato oo ka cabsato dhammaan saaxiibada, maxaa yeelay zamanka aan hadda ku jirno qofka dadka kuugu dhow wax walba ayaa ka suurtagala. qisadan ayaana cashar kuugu filnaan doontaa. waxaana kaa codsan inaad muuqaalkan like saarto siina sheer garayso si uu gaaro dhammaan saaxiibada kale oo ay digniin iyo cashar ugu noqotay uga faa'iidaystaan. meel walba oo waayaha dunida ka mid ah oo aad naga daawanaysana waxaan kaa codsanaa inaad nagu soo biirto. qisadeenna maantay waxay ku bilaabmaysaa wiilkan uu sawirkiisu idiin muuqdo oo lagu magacaabo Mustafa Saciid. Mustafa Saciid waa xaasile da'diisuna 34 sano ay tahay. wuxuu dhalay gabadhan yar ee sawirkeedu idiin muuqdo oo lagu magacaabo Juwana. Mustafa waa nin Masaari ah, sida caadiga ah dhacdadan waxay ka dhacday Masar. wuxuu ku shaqaysanayay mid ka mid ah basaska waaweyn ee lagu qaado ardayda jaamacadaha iyo iskuulada iyo shaqaalaha shirkadaha. baskan ayuuna nolol maalmeedkiisa ka soo dhacsan jiray. dhammaan dadku waa ay jeclaayeen nin wanaagsan, dabeecadiisa la jecel yahay. Mustafa saaxiibo badan oo basley ah ayuu lahaa, laakiin saaxiibkiisa gaarka ah ee ugu wanaagsan wuxuu ahaa ninkan oo lagu magacaabo Taqaawi. ninkan iyo Mustafa waa isla soo koreen yaraantii. Mustafa intii uusan guursan ka hor saaxiibo ayay ahaayeen, hadda oo ay basley yihiinna saaxiibo ayay ku yihiin shaqada. oo Taqaawi asaguna waa darawal bas. markaan waxay ahaayeen laba saaxiibo ah oo aad isu jecel, waxaana ka dhexeeyay saaxiibtinimo aan caadi ahayn. wax walba isla cunaan, xaafadahay isugu yimaadaan. maalin maalmaha ka mid ah Taqaawi ayaa u yimid Mustafa waxauna ku dhahay waxaan rabaa inaan gabar ciddeeda ka doonto. Taqaawi gabadhii ayuu reerkii ka doontay. Mustafana mar walba waa uu ku garab taagnaa oo waa uu ku dhiirigelinayay inuu guursado. doonistii waa ay dhammaatay oo Taqaawi gabadhii waa la siiyey, waxaana lagu ballamay inuu Taqaawi gabadhan cidda ka aroosi doono sanad kadib. carabtu annaga waa ay naga dhaqan duwan yihiin. maalmuhu waa ay socdaane sanadkii waa uu dhammaaday. sanadkii kale dhexdiisa ayaa la gaaray asagoo aan Taqaawi reerkii gabadhi ka doonan. sababtuna waxay ahayd duruufaha Taqaawi oo aad u adkaa iyo Taqaawi oo aan markaas awoodin inuu guursado. Taqaawina mar walba Mustafa ayuu u caba jiray, u sheega jiray culeysyada haysta. Mustafana mar walba saaxiibkiis waa u dhiirigeli jiray, waa u taageeri jiray, wuxuuna isku dayi jiray inuu la fududeeyo arrinta. laakiin duruufihiisa adag darteed Taqaawi waqtiga waa uu ku dheeraaday. 2 sano iyo ka badan ayaa la gaaray, waana uu awoodi waayey inuu arooso. sidaan ognahayna labadoodu waa isku shaqo. Mustafa shaqaalaha shirkadaha ayuu qaadaa, ardayda madaarista ayuu qaadaa, kadibna busteejadaba lagama waayo. maalin maalmaha ka mid ah xilli aroor hore oo kallaha ah waqtigii uu bixi jiray iyadoo aan la gaarin, degdeg ayuu u labistay. asagoo aan xaaskii iyo ehelkii waxba u sheegin ayuu degdeg ku baxay. markii uu shaqaalaha qaadi jiray mar 1 saac iyo bar ka horeysa ayuu gurigii ka baxay. xilligii uu shaqaalaha qaadi jiray ayaa la gaaray. Mustafa ma imaan. mid ka mid ah shaqaalihii ayaa wacay Mustafa ehelkiisii waxaana ku dhahay Mustafa ayaan sugaynaa. xilligii uu naqaadi lahaa waa la dhaafay, taleefankiisu waa uu dansan yahay. ehelkii ayaa yaabeen. Mustafa oo aan shaqadiisi joogin taleefankiisu dansan yahay, halkee ayuu aadi karaa? waa ay waceen, laakiin waa dhab, taleefankiisu waa uu xiran yahay gebi ahaanba. okay, Mustafa waa la waayey. cid garanaysa meel uu jirana ma leh. saacad, 2 saac ilaa 5 saac ayaa la sugay. markii wax jawaab ah laga waayey, booliiska ayaa la wacay si ay u raadiyaan oo baaritaan ugu sameeyaan Mustafa. laakiin nasiib darro, booliisku waxay dhaheen sida sharciga ah marka qofka la waayey baaritaan annagu aan ku samaynayno waa inay ka soo wareegto muddo 48 saacadood ah. qof 1 saac ama 5 saacadood maqnaa annagu baaritaan kuma samayno. ehelkii Mustafa waxay go'aansadeen inay 48 saacadood ayagu baaritaan samaystaan. Mustafa sawiradiisii iyo wax walba oo ku saabsan ayay baraha bulshada ku baahiyeen. asaga iyo baskiisiiba waa isla maqan yihiin, waa la wada raadinayaa. dhammaan shaqaalihii basleyda ahaa oo uu saaxiibkiis Taqaawi ka mid yahayna baaritaanka ayay wax uga jiraan. maalintii koowaad ayaa dhammaatay iyadoo aan wax war ah laga hayn. maalintii labaad ayaa sidoo kale dhammaatay. markii ay 48 saacadood ka soo wareegatay ayay booliisku bilaabeen markaas baaritaankooda. booliiskuna waxay baaritaankooda ka bilaabayaan qofkan meelihii ugu dambeeyey oo uu joogay, kaamirooyinkii ilaalada oo ku yaalay, si kaamirooyinkaas looga tixraaco qofkii ugu dambeeyey oo uu la socday noloshiisa. kaamirooyinkii oo dhan markii la baaray, qofkii ugu dambeeyey ee ay baskiisa wada raaceen waxa uu noqday saaxiibkiis Taqaawi. waa ay dhaqaaqeen, kaamirooyinkiina waa ay ka qarsoomeen. qaybta labaad, dadka saaxiibkiis la khaarijiyey oo ah dad weligiin aadnan rumaysanayn, iyo sababta uu u dilay oo ah mid aadnan rumaysanayn ayadana. muuqaalka oo dheer iyo waqtiga oo ay ugu yaraaday dartiisba intaan ayaan kusoo koobayaa qaybta koobaad. saaxiibayaal muuqaalka like saara. youtube-keenna waayaha dunida channelna qaybta labaad asaga ayaan soo geli doonaa. 20 kun noo gaarsiiya.